أنا وصار دي شيء هرت ده هذا الكن يسوي هو موضوع كله أرد كيف كسهلنا وحنا مردين تعبنا يا كل يبقى أنا بالصومالي بانا أنا مقع الصومالي يشرف كيسة يكفان كيسة يوحي يبان تعالى dadkii sanaan jeclahay dalkii sanaan jeclahay inta uu magacayga aad uu ku maqasheen oo ku aragteen intaas un bay ahayd marka taa inaan xoogaa ka taabto oo wax badan laga oran karo in yar farag togaaliyo inaan iraahdo bal horta Soomaalidu maxay ahayd Soomaali meeymka maxay noqotay iyo Soomaali meeymka maxay wadana iyo xoogay bal orodkaygiina inaan xoogaa idin yar dul cararo Soomaalidu maxay ahayd Soomaalidu maanta ilaa adduunka way isku wareeraysan marka wada hadlaysaan ee sawirka ay maanta ka haystaan iyo ka ay Soomaali ahayd Soomaali miyaan ahayn tii waligeed isiga iyo sharafta ku noolayd qarnigii afraad iyo toddobaad iyo kii 13aad iyo kii 17aad ba Soomaali tii waligeed dadkii isqiimeyn jiray oo sharafta lahaa miyaan ahayn Soomaaliya miyaan ahayn dadkii gobonnimo iyo geesinimo iyo martigelinba adduunka buugtooda dhan lagu qoray miyaan ahayn Soomaali miyaan ahayn kuwii xornimo u dirirka iyo gobonnimada halgankeedii hogaaminayay iyaga ma aha Afrika oo dhan miyaan ahayn kuwii Faransiis iyo Ingiriis iyo Talyaani iyo intay lugaha ku jiidanayeenba markay u caalwaayeen Soomaaliya miyaanay noqon meeshii ugu horeysay ay markay madfac iyo diyaarad iyo mid markab laga soo tuuro ugu caalwaayeen foodana gali waayeen diyaaradaha ku duqeeyeen ee Afrika ugu horeysay miyaan ahayn ay talix burburinayeen Soomaali tii Axmed Guriya Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ka dhasheen miyaanay ahayn Soomaali tii waligeed isku duubnayd miyaanay ahayn Soomaali tii markay xornimadeeda soo dhacsatay Afrikana in badan hogaamisay oo u soo dhicisay tii iyadu markay qaadatay xornimada dimuqraadiyadan maanta adduunka oo dhan sanka laga marmariyo oo lagu faano tii iyadu ugu horeysay Afrika qaadatay miyaanay ahayn ee kala dambeynteedii iyo sharcigeedii iyo dastuurkeedii iyo electionkeedii oo qof waliba codkiisa dhiibanayay madaxweynihii ugu horeeyay Allah u naxariistay aadan cadda uu kaga digay Soomaali miyaanay taa ahayn Soomaali tii adduun Afrika oo dhan horumarka kaga deynayeen miyaan ahayn tii Soomaali afkeeda hooyo intay qoratay dawladaha ugu horeeyay ee qortay ahaa ee ilaa maamul iyo waxbarasho iyo ku dhaqan gamcahooda biyo kaga dhargay miyaanay ahayn afka caadi ma ahayn Soomaali tii tacliinteeda ilaa dugsiga hoose ilaa jaamacaddu bilaash ahayd oo ardayda jaamacadda ku jirta bukad mariga la siin jiray gunada miyaanay ahayn adduunka kama dhacdo tii dadkeeda caafimaadka bilaashka wada gaarsiisay miyaanay Soomaali ahayn Soomaalidu niqiin miyaanay ahayn Soomaaliya dadkii sharafta badnaa ee waxa weeye hanka weynaa ee dhaqankooda iyo dhaladkooda ku faani jiray miyaanay Soomaali ahayn maxaa ku dhacay Soomaalidii caynka ahayd oo aynu isla wada garanaynay xagee aaday maxay noqotay imanka tamaanta dhacday oo laga yaabo inta aniga iga daada yari inaanay garanaynba dawatanaynu maanta u jeedno dal dubay oo khariidadba ka sii baxaya dad haddii aanay istaba qaban dabar go'aya dad tahriib iyo talala'aan ku dhammaaday dad loo tashaday oo laga tashaday oo la qabsaday oo la kala qaybiyay oo aan isogeyn xaaladdeenu meel xun bay maraysaa xaaladdeenu 4.5 bay maraysaa bal 4.5 aan kalmad ka soo qabtaba yani waxa weeye
markii salaada la soo dajiyay alayhi salaatu wasalaam nabigeeni konton baa loo dhiibay baa la yiri ummadaadii u geey markaasuu ilaahay casaawo jalla intuu ku noqday yiri dadkayga ilaahay konton waa ku badantay kada si uu noqnoqonayay ayaa shan looga soo reebay 4.5 ma wax dad loola yimaadaaba ummadeena meesha ka qaldantay waxyaabaha kamida waxa kamida ilaa soo diri imbegeti xaqan marba shir baa la inoogu soo qabtaa dad baa wax la inoogu soo dhiibaa sidoodii iyagoo inoo wada oo aan oran war waxani wax dadka iyagii la hortagi karo maaha ayaa la inoo keenaa waxaad ku tiraahdaa dadkaagi waa kuwaas dhibic shanbaati war Soomaali waati arrimaheedu aanay islaan jirin ee geedka ku dhamaysan jirtay garteeda Soomaali waati afarta faatixo isu mari jirtay kala dhaqaaqi jirtay Soomaali waati imika inoo sheegay professorkii uu lahaa isku mid baatiin isku afbaatiin isku dhaqan baatiin xagee baladu idin ka haysata waati hibadeena inoo sheegay uu lahaa dad aad u maskaxti badan baatiin laakiin isma ogidin aan waxaan oran lahaa aynu istaba qabanno aynu hanweynidii iyo yani dhigtii iyo dhaqankii aynu ilaashin jirnay aan ku soo noqono qof waliba naftiisuna ka bilaabay haddaad naftaada u sharaftid waxa kale waa iman karaya oo de waxa weeye Soomaalidu waxa la oran jiray qofkaasi dhigtii buu dilay waxaasi dhigtii buu dilay waan kalmad xun laga maqal haddii adiga laga maqlo gurigaaga laga maqlo xaafadda laga maqlo magaalada dhan laga waxo war magaaladaas magaalo khayr leh ma aha waa ya marka taa laga taxadiro waxaan idin gelayaa un xalku waxa weeye iyadoo Soomaaliya gamcaha isqabsato midowdo dantooda garato jiilka dambena uu garto in baan weydiiyo waxaan ku iri xagee baladu ka dhacday markaas yiri dadkii gobonimada keenay 60kii iyadoo bahashiyo fiican baysan noogu dhiibeen annaguna wuxuu yiri 20 jiraan ma ahayn islaha xoogay waxbaad barateen markaasaan annaguna ku loo farnay buu yiri ilaa 60kii ilaa 90kii baan ku ciyaarayno xagga u ridnay annaga ku tumanay buu yiri wax kale yaan leedin sheegay dhalinyarada iminka joogta marka inay iyaguna sida goboladan iyo degmooyinkan iyo kala qaybintan iyo qabyaaladan iyo qabiilkan iyo qaraabo goyskan inaanay ku soconay mar wada gartaan war wada jirbadantu ku jirtay aynu mar Soomaalinimadii iyo magacii sharafta lahaa aynu dib ugu soo noqono inta haddaan ka gudbo halka waxa la leeyahay 5 daqiiqo hadhay waxa baan moodayay inaan daqiiqo hadlay ninkayga hadalka ka baqay orodkii aan idin ku noqdo runtii waxa weeye waad ka dheregsantiin Cabdi Bilay iyo orodkiisii iyo guushii waqti yar oo iska kooban bay ahayd 30 sano ka hor bay ahayd ilaahay cimriga ha inoo dheereeyo taa waad ka dheregsantiin laakiin in yar baan idin ka sheegaya waxa weeye hamiga caawa dhamaan ka hadlayna waxa weeye qofka bini aadamka hadii uu leeyahay hami inuu meel gaaro hadii uu ku dadaalo ilaahayna la qabto uu gaaraa aniga hamigayga yar oo koobnaa midaan luga ku taagnayn buu ahaa Soomaaliya aan internet lahayn TV-na lahayn wax kale lahayn hamigii yaraaya dalka dhexdiisa ka bilowday ee buuraha laascaanood ka bilowday adduunkan soo jabinaya waxa la yiri war hayay waa balukaadi intii ka dambeysana waad la socotaan guushaas iyo wixii ay ahayd meeshan ka gaadhay biladii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee 30 sano ka hor waxa weeye aynu qaadanay okay laba wax marka hamiga waa la gaaraa mid sarana hal la yeesho laakiin laba wax baan idin sheegaya laynka markaan taagnaa culayska i hayay horta halgankii iyo isaga waxa weeye rough road iyo kidkid wixii aan maray taa idin ka sheekayn maayo laakiin dib badan bay ahayd laakiin laynka markaan taagnaa waxaan dareemayay in Soomaali oo dhami barasharka isaarnaa iyo culayska inay dhamaantood inta la soo qaaday dusha iga fuule markaan ka yaabay anigiiba waxa isrooniyo geeli iyo loodina miyay soo kaxaystay ya horta dhibtaasay ahayd laakiin
guul waliba dhadhan iyo macaan bay leedahay iyo meel ay ku dhamaato waxa weeye anigoo dalka Talyaaniga jooga inaan ku qaaday dalka Talyaanigu muxuu ahaa dalkii ina gumaysanayay dalkiisii ayay ahay waxaan ka qaaday Ingiriis ninkii adduunka haystay ee Ingiriiska ahaa waa kii ina gumaysanayay markaas ayaa calankeeni la saaray ninka saddexaad wuxuu ahaa Mareykan oo waxa calankeenu ka sareeyay oo ka hoos babanayay calankii Mareykanka markaas musigeeni la saaray aniga secondkaas daqiiqada iyada ah oo aan dhex taaganahay adduunkii oo dhan calankaygu u taagan way dalkii Talyaaniga tahay kii webiga nagaga gudbayay way tahay Ingiriiskii oo waxaanu isla soo marnay taleexaan anigu ka yimi kii duqeynayay oo maanta calankaygiina saaran yahay ayna u taagan yihiin musigayagiina dhageysanayaan guusha waa la gaaraa aniguna dadka qof kasta oo himilo leh waxaan ku iraahdaa hadduu dadkeenu dadka waa niyad jebiyaan dadki waxaynu nahay runtii aniga baraka inaynu dadka ugu xun ee dadka niyad jebiyanahay marka haddii anigu waxaan jecelahay qof bini aadam yiraahdo cirkan tegaya inaan yiraahdo wardayaxa iyo daruurahana ku siinaso soomaad garan ya adeeduna taako ya adeedu dalaalnimo soomaad garan insha Allah guul baan inoo rajaynayaa Soomaali baan ahay magaca Soomaali hadii la wada qiimeeyo lagu faanana meel baynu gaaraynaa insha Allah Soomaali